السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijkeena shir jaraa'id waxa weeye maanta waxaan ka sheekeynana sheeko naxdin leh aad iyo aad u naxdin leh oo ka dhacday. waxaan ka sheekeynana tahriibta dadkan tahriibaya aan leenahay tahriibta iska joojiya oo daaya sababtoo ah dee ilaahay dee wax nagu amraynaa dee kulleyba naftiina tahluka aad ku tuurina marka haddaad ku tuurtaan tahluko dee idinkaa ka mas-uul ah marka dee kulleyba qisaa jirta qofku inuu qanci waayo tahriibka fakera mar walba ayaan sheegaya. beri waxaa jiray nin aad iyo aad u gaajoon jiray oo dee wax uu cuno iyo wuxuu haystaba u waayey markii dambe masaajidku iska tegay wuxuu maqlay dee in allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaab. markaa dee masaajidku fadhiistay salaad walba ku tukan jiray masaajidkiiba sidii u joogi jiray. markaas maalintii ugu horreysay maalintii labaad maalintii saddexaad gaajaa qabatay gaajadii xamil kari waayey markaasuu masaajidkii ka baxay wuu tegay meeshii buu eegay markaa waxaa arkay xaafad daaqadeedu furan tahay daaqadii buu ka booday daaqadii markuu ka booday buu arkay hilib meesha yaalla hilibkii buu dee afkiisa ku qabtay oo dee qaniinay markuu sidaa u qaniinay ilkihiisi si xasuus ka qabtay yidhi allah intaasoo dhan ba samrisay maxaad hadda u joojinaysaayo aad waxaan khaladka u samaynaysaa. markaasuu dib uga soo baday masaajidkii buu ku soo noqday masaajidkii markuu soo fadhiistay in yar u fadhiyey ayaa masaajidka salaada subax markii ay gaadheen gabadh baa soo gashay wuxuu tiri sheekh masaajidka ninkii masaajidka tujin jiray bay ku tiri waxaad doonaynaa nin ay ku dartid anigu saasaan ahay naaga carmalaan ahay intaasoo dhan keligeeba degan meesha marka waxaad doonaynaa nin aad igu dartid aad u fiican. markaa sheekhii wuxuu yidhi salaada ka bacdi baa eegi doonaa wuxuu yidhi anuu ninkaa meeshaa fadhiya maad aragtay masaajidka fadhiya ninkaasaa ku dee masaajidka intaasoo dhan joogay salaadiina uu tukanayo salaad subaxna may dhaafin salaadna may dhaafin markaa ninkaasaa ku dari doonaa salaadii ka bacdi aa ninka lagu daray faatixadii loo mariyey. markaa gabadhii oo ninka lagu daray ayaa israacay gurigii bay tegeen gurigii markay saa u tegeen uu fadhiistay ay gabadhii hilibka usoo dhigtay hilibkii markay usoo dhigtay ayuu tidhi allah ninkan xaaraanta ah ee xaaraamiga ay ilkaha ku qabtay meesha ilkaha ku sawiran waa maxay. markaasuu ninkii dee ilmo ayuu qabtay oo hin ku daatay markaasuu yidhi wallaahi waa anigaa dib ugu soo booday wuxuu yidhi gaajadii bal daawo buu yidhi waxaan ku cuni lahaa xaaraan baan ku cuni lahaa markii haddaan cuni lahaa haddana ilaahay baa i qoray xalaal ayaan ku cunayaayo ilaahayna gabadha adiga ah ayuu ii siiyey. markaa dee waad arki doontaan ilaahay qof walba qadartiisa uu hayaayo meeshaad joogtid buu ku imanaysaa. markaa dadkan tahriibayaan u sheegaya xog leeyahay waxba tahriibina tahriibtana iska alaaliya sababtoo ah waad aragteen qadarta ilaahay meel walba adigoo jooga adigoo soomaaliya jooga adigoo hargeysa adigoo burco adigoo muqdisho adigoo puntland adigoo meel walba jooga ku imanaya ilaahay baa arsaaqdaada ku haya markaas ka alaali sababto waxa ilaahay u qoray qof walba qadartiisa meesha doonaysaad noqotid. marka anigu waxaan ku leeyahay inaad aaminsanaataan dadka tahriibeen xoole tahriibta iska daaya haddana waad arki doontaa fiideoga yaray ku dambeeya reer sudaaniya waxaa ku dhacay markaa ila daawada. salaam. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. saxrahan waa saxrada liibiya ku taalla igu dheer dad baa tahriib ku socday famili sudaaniyiina ayaa meesha tegay saxraha marka waa la waayey reerkoodii familigoodii baa raadinayay intaasoo dhan. marka waxaa helay iscaafka liibiya gaadhigay wateen waa kan gaadhigu saas u ekaa way ku jireen 8 baa ku dhintay carruur ku jirto iyo dumar intoodii oo dhan baa ku wada dhintay waa la helay gaadhigii haddana waa la raadinayaa maytadkoodii xaggan bay ku jireen xaggan bay kusoo tahriibeen gaadhigan bay ku jireen alaabtii wateenna wataa meel walbay ku kala daadsan tahay waa kuwa qodaya meel walba way ka raadinayaan isleeyihiin dadkii maytadkooda lasoo helo la soo raadiyo carruur iyo dad baa ku jiray soomaalideena tahriibaysa mar walba inay taa eegto weeye oo aragto waxa ku dhacay dadkaas haraad bay ku dhinteen gaajay ku dhinteen saxrahaasaa dilishay biyo la'aan cunto la'aan waa kuwa maytadkii ku ridaya meelihii ka heleen oo dee inay kaxeeyaan la aaso iyo waxa weeye reerahoodii baa raadinayay intaasoo dhan maytadkoodiina hadda wataa la helay waxaa dadkan caawinaya waxaa weeye gargaarka degdega ee liibiya ayaan raadinaya meeshii wataa laisku wada yimi meeshoodii laga wada qaadayo laisleeyaa raadiya alaabtay wateenna waa kuwa kaadhar baa laga helay magacyadoodii ku qoran yihiin iyo wax walba ku qoran yihiin oo dee alaabtay ka wada tegeen oo dhan wataa carruur baa meesha taalla way wada dhinteen gabadh keliya meesha ku jirtay ayaa qortay waraaq hooyadeed u qortay waxay tiri qofka helow nambarkaa waca walaalkayba xaggaa jooga noo waco dee hooyadii iyo aabaheed ayay weydiisanaysa leedahay qur'aan iyo masaajid iyo sabiil khayra ii sameeya iga raallihoodan dee carruurtiina waa alaalin kari waayey meeshiina inaa gaadho ka wiilka yar ee laga qaaday meesha ku qalalay maydkiisi intaa noqday
sababta waxaasoo dhan waa maxay? waa tahriibtan inaan iska joojino weeye, aan dib dambe u tahriibin. qofka tahriibayo ka cibro qaado videogan, waad arkaysaan dadka lasoo saarayo haraad bay ku dhinteen, biyo la'aan, cunto la'aan, waxna may haysan. waxaasoo dhan maxaa ku kalifay? tahriibta yar weeye. yurubtan iyo meelaha loo tahriibayo marka inay iska daysaan weeye tahriibta, oo aad ka cibro qaadataan waxa dhacay. sababta ilaahay hadhow wid weydiinaya xoolin maxaa tahriibteen. saxarahan dhimasho badan baa jirta, soomaali badan baa ku dhimatay, lama helin meydkoodii. kuwan at least reerkoodii baa ka dambeeyey oo la hadlay libiya oo is yiri ogaada meeshay ku qarsoon yihiin iyo meeshay joogaan. markii dambena wakaa gaadhigoodii yaa la helay, meydadkoodiina oo taala qaaday waa 8. marka gabadha qortay waraaqda unbaa ugu naxdin badnayd oo quslaheed, ii sameeye khayr, qur'aan ii iibiyaayo, ii masaajidii waxay sameeyeen alaabtoodii wataa meesha daadsan. maanta idna kuxunin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xumada maantiyo dhibaatada tahriibkeed dhalan rogtay dadkeeni dhaqan xumada maantiyo dhibaatada tahriibkeed dhalan rogtay dadkeeni wale dhimasha mooye dheef ku gaadhi mayne dhaliyayo soonow wale dhimasha mooye dheef ku gaadhi mayne dhaliyayo soonow saxaaraha dhibkiisiyo isku dhiibi kama gafaha ninkaa dhayasado maqal saxaaraha dhibkiisiyo isku dhiib kama gafaha ninkaa dhayasado maqal hooyada dharaarahan anfaaciga ma dhuunyato ma dhaadhamiso oonto naxdibay la dhuubatay madhaadhamiso onto naxdibay la dhuubatay taleefoonkii soo dhacay lacag buu dhaliidhiyo dhibtooyo wawkali taleefoonkii soo dhacay lacag buu dhaliidhiyo dhibtooyo wawkali dheelalow habeenkii hurda dhinac ma saarte dhinaceeda yaa qabaan yaudani waysada dhinaceeda yaa qabaan yaudani waysada adiguna dhaqaaqde dhibtayaa la qaybsani dhammaadkii waxaa ka hadlaynaa, waxaan leenahay ilaahay baad ku dhaaray ka cibro qaata. dadka daawada waxa ku dhacay, dadkii tahriibay in yar baa badbaadaye, intii ugu badnayd waa dhimatay. marka ilaahay baad weydiin doona naftiinna. marka anigoo talayga tahayba iska alaaliya tahriibta, qadartiina wadii imanaysa meeshaad joogtaanba. marka anigu taasaad ku leeyahay oo waxaad ku leeyahay ilaahay aaminsanaada, calafkiina iyo qadarkiina meel walbaad joogtaan wad ku imanaya. dadkan tahriibay ee dhintay ilaahay u naxariisto, samir iyo imaanna ahlkeeda ka siiyo. marka waxaad ku leeyahay intaa uun ka cibro qaato. adduunku waa sidaa, soomaaliya noqon karta maanta, mise somaliland, mise puntland, meel walba soomaali, jabuuti, kenya, NFD, meel walbay noqon kartaa nabad. dadku way ku noolaan karaan. shidaal iyo macdan baa ka buuxda. nabadda alaaliya oo dalkiina halaashada. marka nabad bay noqon doontaa. tahriibtan iska joojiya, tahriibtu wax fiican maaha. aakhira la weydiin doonaa. dad baa ku silcay oo waad aragteen, dad baa ku dhintay oo waad aragteen, dad baa dib u soo laabtay oo waad aragteen. mid walbuu ka sheekeeyey dhibta ku soo martay iyo wuxuu soo arkayba waad ka maqasheen meel walba. marka dadkii yimina qaar badan oo yurub jooga oo waalwaalan baa jooga, ayagoo yimi oo dhibaatooyin iyo adduun iyo wax walba arkay. marka ma aha adduunka dhammaadkiisa. waxaad ku leeyahay dib ka fekero, bal eega, dib u eega waxa dhacay oo dukada dee wixii horey dhacay. dib dambe hagu noqonin tahriibta. qofkii tahriibayoo waad ku badbaadaya, la tali dadka tahriibin
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشير جرايد